madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble ayaa magacaabay golaha wasiirada Hirshabelle oo ka kooban 23 wasiir ku-xigeen iyo 6 wasiir dowle waxaana madasha lagu magacaabay golaha wasiirada goobjoog ahaa qaar ka mid ah wasiirada la magacaabay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Hirshabelle Cabduqaadir Cabdulle Xooshow ayaa warbaahinta u aqriyay liiska wasiirada la magacaabay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. maanta oo taariikhdu ay tahay 20 bisha 2017 magacaabista golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle qodobada kala ah qodobka 4 xarafka a qodobka 5 nuqdada 2 xarafka ba qodobka 25 nuqdada 1 qodobka 28 nuqdada 1 qodobka 45 nuqdada 2 qodobka 51 iyo qodobka 56 wuxuu soo saaray xeer lambarka eber 7 golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle. marka waxaan idin akhrinayaa golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan ku bilaabayaa wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle kow Maxamed Cali Caadle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha. 2 xildhibaan Cali Xaaji Cabdulle Isgow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka. 3 xildhibaan injineer Cabdikariin Cali Nuur wasiirka wasaaradda dekedaha gaadiidka iyo badda. 4 xildhibaan Idle Siyaar Sheekh Shariif wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. 5 xildhibaan Ibraahim Cali Sambuur wasiirka wasaaradda amniga. 6 xildhibaan Maxamuud Sheekh Cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. 7 Sabriye Cismaan Tuxubow wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. 8 Dr. Maxamed Maxamuud Cabdulle wasiirka wasaaradda maaliyadda. 9 xildhibaan Mahad Xasan Cismaan wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska. 10 xildhibaan Maxamed Cabdulle Maxamuud Batalaale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. 11 Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gibiley wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga iyo xiriirka qurba joogta. 12 xildhibaan Cabduqaadir Cusmaan Cabdisalaam wasiirka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta. 13 xildhibaan Shucayb Cabdikariim Muumin wasiirka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta. 14 Dr. Cabdiqani Aadan Jeelle wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa. 15 xildhibaan Cabdullaahi Axmed Cadow wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. 16 xildhibaan Cabdiqani Cabdullaahi Hilowle Jenyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga dhaqan celinta maleeshiyaadka. 17 xildhibaan Dr. Cabdullaahi Sheekh Abukar wasiirka wasaaradda waxbarashada. 18 Jaamac Xuseen Xaashi wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta. 19 Cabdikariin Nuur Doobyare wasiirka wasaaradda bii'ada iyo horumarinta reer guuraaga. 20 Axmed Cabdikariim Maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka hooyada iyo dhallaanka. 21 Sacdiye Maxamed Nuur Burus wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. 22 xildhibaan Qadar Xasan Maxamed wasiirka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka. 23 Yuusuf Axmed Hagar wasiirka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada. wasiir dowlayaasha 1 Sayid Xasan Cali wasiir dowlaha beeraha iyo waraabka. 2 Bishaar Xasan Xirsi wasiir dowlaha amniga. xildhibaan Ismaaciil Maxamed Nuur wasiir dowlaha howlaha guud iyo guryeynta. xildhibaan Cabdirashiid Cabdikariim Warsame wasiir dowlaha arrimaha gudaha. 5 Cali Cusmaan Cosoble wasiir dowlaha madaxtooyada. 6 xildhibaan Salaad Sheekh Xuseen wasiir dowlaha gaadiidka iyo duulista hawada. markan waxaan idin akhrinayaa wasiir ku-xigeenada iyo tirada ay ka kooban yihiin.
kow xildhibaan maxamed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha. labo xildhibaan maxamed sheekh faras cadde wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka. saddex xildhibaan yuusuf xasan jeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda. afar xildhibaan xasan maxamed jimcaale madaxey wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda. shan xildhibaan cali xuseen maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga. lix xaliimo cali saciid wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. toddobo cabdulaahi cali cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. sideed xildhibaan daahir mukhtaar cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda. sagaal xildhibaan cabdikariin maxamed diiriye wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska. toban xildhibaan cabdulaahi cosoble bare wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada. 11 xildhibaan cabdisalaan gacal cadow wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga xiriirka caalamiga iyo qurbi joogta. 12 cabdicasiis sheekh cabdisamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta. 13 xildhibaan cabdiweli maxamed ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha macdanta iyo tamarta. 14 xildhibaan maxamed xuseen goodby wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa. 15 xildhibaan cabdifataax cabduqaadir cadow wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta. 16 xildhibaan maxamed cabdalla cali deeqow wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada isboortiga iyo dhaqan celinta maleeshiyaadka. 17 xildhibaan axmed cabdi cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada. 18 xildhibaan cali cusmaan ibraahim wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta. 19 xildhibaan maxamed bashiir qaasim daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda bii'ada horumarinta reer miyiga reer guuraaga. 20 xildhibaan sacdiye cabdulaahi maxamed wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka daryeelka hooyada iyo dhallaanka. 21 xildhibaan triig ibraahim axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka. 22 xildhibaan maxamed cabdiraxmaan khayrad wasiir ku-xigeenka wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka. 23 maxamed cali xayle wasiir ku-xigeenka wasaaradda dib u heshiisiinta iyo isdhexgalka bulshada. intaa ayay ku egyihiin magacaabistii maanta la magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle idinkoo ka socda warbaahintana aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin.